markii dabagal lagu sameeyay teleefoonkooda dhaqdhaqaaqa oo ku sameeyay magaalada Muqdisho saacadihii ay maaragtay gabadhaasi la waayay anteenada ku taalo muxuu ahay daljirka daahsoon ayaa qabatay saacadii ay joogtay kulli waa record waxa waa istikhbaaraadka adduunkana way haystaan arrintaani waxa muxuu ahay loo baari doonaa sida qashooqi oo kale dad kale ayaa ku maqan Fahad Yaasiin iyo kulanana kuma badbaadi doonaan shirqoolka gabadha yar oo saqiirka oo 23 jirka oo wali aan maaragtay aan ilmaha ay dileen waxa waa kuma badbaadi doonaan mukhaabaraad badan ayaa maaragtay arrintaani baaritaan ku hayo anteenada markii ay ka dhaqaaqday gabarta markii la weynaay markii ka dhaqaaqday anteenada daljirka daahsoon waa bariya la geeyay anteenada waa bari ayaa qabatay ka bacdi waa la soo waday gabadha waxa la geeyay Cabdicaziis anteenada Cabdicaziis aa qabatay kilometer 0 markii la keenay ayaa telefoonka la damiyay waayo nimankan waa istikhbaaraadkii oo qadar iyo Eritrea ayaa tababareen markii la damiyay waxa ay sameeyeen steam carkina way jabiyeen telefoonkina way jabiyeen marka waxa way gabadhaasi waxa ay ku maqan tahay 100% Fahad Yaasiin iyo waxay ku maqan tahay kulan ay ku maqan tahay hooyadeed markii uu yiri Fahad Yaasiin waxyaabaha ugu daran waxa way hooyadeed markii uu yiri Fahad Yaasiin iimaw oo ay ka cabsatay oo ay tiri meeshii maxaa dadka lagu qalaayay oo maartay kawaanka ahayd ummadda Soomaaliyeed lagu xasuuqay ayaa maanta liiga yeeray oo gabarteeda ay ku maqan tahay gabarta habaryar u ah iyada Israaceen iyo dad kale oo muxuu ahay oo meesha ay tageen markay meesha ay tageen oo inuu soo baxay oo u yimid si jees ay wuxuu gabartaadu way maqan tahay meel ay ku maqan tahay anagu ma garanayno marka waxa waaye dad ayaa muxuu ahay nagu dhex jiro oo maaragtay been abuuranayo marka gabadhaada meel ay jirto ma naqaan inay nooshahay in kale tan ma ogin laakiin baaritaan ayaan ku wadnaa hooyadii ooyin ay halka la fariisatay saraakiishii oo taliska nabad sugidda joogtay ayaan xogtaas ka helay halkaas ayay baroor la fariisteen say u ooyinayeen arxan laawe Fahad Yaasiin oo ka baxay meesha ay ka baxay wuxuu aaday xafiiskiisu iska aaday askar u soo diray garbaha ka qabtay banaanka ku tuuro yiri warwa waxaasi waxa maaragtay rabaan inay maaragtay farmaajo idin ku soo celiyaan dadka magaalada Muqdisho waa habaarantihiin banaanka u soo baxa 7,000 oo dhalinyaro waxa lagu qiyaas ilaa 5,500 ayuu maanta muxuu ahay oo Tigray oo afka u galiyay dagaal sukeey oo qabali ayuu galiyay maantayna waxa waa idinka sidaas soo raba inuu idin xasuuqo oo Xaafid Asad oo idin ku noqdo ninkan la yiraahdo Fahad Yaasiin waa Maxamed bin Salman oo kale waa MB oo kale gabadha way qasheen iyaga qalay iyagay ku maqan tahay marka dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga iyo Soomaaliya oo dhan waa inaad u istaagtaan oo xuquuqda gabartaasi iyo ciidanka maqan inaad raadisiin حكمتان استبدادك أيو كشقينا أن هذه الحكام إذا قتل واحد منا فقالوا رحيما فإذا تصرف أموالنا فقالوا كريما فإذا قاد لهم الهلاك والموت فيطيعون marka waxa waa kuwa ateecay oo u sacbinayo xildhibaananahay maanta waxa laga hayaa afkooda inay yiraahdeen annaga naftayna baan u cabsanayna dad rucbi iyo cabsi ku abuuray ayuu noqday taliska nabad sugidda Soomaaliyeed laakiin si idinka ayaa la rabaa inaad dulligaas iska dulqaataan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh